الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحكوين كحجينك دولة بنتلان قدوميها يلبديس كحجين برلمانك بنتلان وزير ردا دولة فدرالك لبدا أقل دولة فدرالك حكومة يا برلمانك بنتلان رئيس الوزراء هراء مدحوينياشي هراء بنتلان مرتي شرف تدمان توت oo ismadu ugu horeeyaan dhalinyaradu ku jirto aqoon-yahanka siyaasiyiintu waxaan si gaar ah u salaamayaa inta marka laga soo tago ciidamada qalabka sida saraakiishii ka qayb gashay shirka oo runtii talooyin wax ku la halka soo jeedisay iyo ciidamada qalabka sida ee ammaanka guud ee Puntland iyo kan gaarka ay xaruntan sugaya oo jiritaanka nabadda iyo nolosha iyo horumarka aan haysan asaaska u ah waxaan sidoo kale salaamayaa saxaafadda oo door weyn ciyaartay guddigii qabanqaabada jaamacadda BSU cid walba oo halka ka qayb qaadatay wax yar iyo wax badan intaba waa salaamantihiin waan inii mahadnaqayaa waxaan aad u jeclahay inaan halka iyadana ka xuso dhammaan intii ka soo shaqaysay aasaaskii Puntland oo runtii waqti iyo maskax iyo maal iyo muruq gelisay oo ugu mudnaayeen ismadii dalka xilliga wixii noolaa iyo cid kasta oo taa kula ka soo qaadatay tabantaabadii Puntland uga aasaasay waxaan si gaar ah halka uga duceynaynaa intii dhimatay oo islaan maxamed islaan ciise uu horeeyo madaxweynayaashii soo maray Puntland ee geeriyootay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo madaxweyne Cadde inta nool waxaan u baryaynaa cimri dheer iyo caafimaad oo ugu mudan yahay madaxweyne maxamed cabdi xaashi oo runtii da iyo xanuun la sheega ma hayo waan soo arkay laakiin gabow baa haya inta kale tan waxaan u rajaynayaa caafimaad iyo shaqo wanaagsan dhammaantiin waxaan rajaynayaa guushaas aan gaarnay inaan mar walba xasuusanaano ciddii ka soo shaqaysay oo aan la ilaawin runtii waxaa halka ka soo baxay waa taladiinii waxaa halka la isugu yimid waa gogol wada tashi marka la leeyahay waa la wada tashanayaa Puntland cid laga tegay male Puntland kuwa ku jira xukuumadaha heer federaal iyo heer Puntland iyo bulshada qaybaheeda kale kuwa xukuumadda halka hadda ka jirta mucaarad ku ah iyo muxaafidkeeda kuwa Puntland kuwa federaalka ka jira mucaaradkeeda iyo muxaafidkeeda isin dhalinyaro waayeel waxa kaliya oo halka looga soo qayb galay waa inay yihiin dadka reer Puntland ku bahoobay iyagoo kala sooc iyo kala saar lahayn oo ay u dhan yihiin halka oo ay ugu dambeeyeen ka soo qayb galka Puntland midnimadeeda dhuleed iyo dadeed waxa ugu dambeeyay degmooyinka Tawfiiq iyo Saaxo intaba halka waa lagu dhamaa taas waxay muujinaysaa in wada tashi dhab ah markii la yiraahdo hal wada tashado taladu waa ay kala duwanaanaysaa maalmihii u dambeysay waxaad ka dheehanayseen hadallada halka ka baxaya aragtiyo kala duwan iyo qorshayaal qof walba u muuqda doodihii shalay la galay waxay muujinaysaa dimuqraadiyadda iyo garaadka reer Puntland waxaad ogtihiin oo halka markhaati ka tihiin qaybaha qaybtood qaar baa gacan iskula tegay doodaha xamaasadooda iyo heerka taagan waa sharaf Puntland waa kala ra'yi duwanaan kartaa waa isku diili kartaa laakiin ma kala tagi karto ma kala tagayno midnimadeena waa dhowreynaa mar walbana waa wada jiraynaa haddii ilaahay waxaa halka aad loogu naxnuuxsaday Puntland ahdaafta loo aasaasay waxaa la yiri waa gaartay waxba qabyo ah midnimadii Soomaaliya wili waa ka maqantaalanta waa qabyo deegaanada Soomaaliya kamid ah waxay leeyihiin waa go'ayna baadi goob ay u baahan tahay waxaa lagu aasaasay ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka federaalka labadaba waxba ka nool laakiin waxba qabyo ka ah
marka reer Puntland waxaan u sheegayaa geediga ay ku jirteen marxaladiisii ma soo xirmin wili way socotaa yaan la daalin ha loo dhabar adeego wixii lagu yaqaanay oo ah ka shaqaynta midnimada marna ha ka tanaasulin wixii halka laga soo jeediyay idinkaa soo jeediyay waxaad u soo jeediseen golayaasha dowladda Puntland anoo magacooda ku hadlaya wixii aad soo jeediseen waan aqbalnay wixii ka hagaagsanna waa fulin doonaa wixii u baahan doosinna waan hagaajin doonaa kalsooni buuxda nagu qaba in aan taladiina aanan dayacayn oo aysan noqonayn waxa soo jeediseen oo kaliya waxa ugu muhiimsanay talooyinka la soo jeediyay in Puntland sidii lagu yaqaanay dowrka ay ku leedahay hogaaminta iyo wax ka dhiska dowladnimada Soomaaliyeed inay kaalinteedii aysan dib uga dhicin horena waa u ballan qaadeenaa anoo taladiina ka duulaya waxaan ku dhawaaqayaa gogol shir aan u qabanno dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay isugu yimaadaan magaalada Garowe oo aayaha Soomaaliya iyo marxaladda cusub ee cakiran ay u cirbixiyaan waan rajaynayaa in maamulada iyo dowladaha la doortay ay ku filan yihiin marxaladda adag Soomaaliya inay ka gudbiyaan waa hadday la tashadaan dadkooda annagu Puntland waxaan ballan qaadayaa taladiina geyn doonaa gogoshaas marka la yimaado waxaan ka rajaynayaa dadka kale oo mas'uuliyiinta ana talooyinka dadkooda inay la yimaadaan haddii dadka taladooda la maqlo turxaan badan oo hadda jirta iyo madmadow ay baxaysaa dalkan qof iyo koox waa ka weyn waxa kaliya oo lagu dhaqi karaa waa wadajir isdagaysi ismaqal isku dhibrin iyo in tala midaysan la wada qaato waxaan aad ugu baaqayaa in dadka reer Puntland ay hormuud ugu noqdaan ummadda Soomaaliyeed inay badbaadiyaan inay mustaqbalkooda ka shaqeeyaan inay maaragtay taladoodana ay meeshaas geliyaan shirkan shir wada tashigo Puntland cidna ka caban mayso cidna u caban mayso waxa ay ka tashanaysaa danaheeda Puntland waxay wax ka talinaysaa danaha Soomaaliya waxay wax ku biirinaysaa ummadda Soomaaliyeed wanaagooda iyo horumarkooda waxaan dhageysanaynaa cid kastoo naga fikir duwan waxaan jecelnahay khilaaf kasta oo dad kale oo reer Puntland ay noo dhaxeeyo wada hadal iyo isqancin inaan ku gaarno oo xabad iyo qori aad meel ugu gaari karin waxaan runtii wixii sharweynaha la oran lahaa idinka ay war murtiyeedkiina ku soo bandhigteen waan rajaynayaa war murtiyeedkaas waa tala soo jeedin dad kala duwan ay soo jeediyeen ninna yuusan filan sida uu jecel yahay kaliya inuu arko waxa uu dhibsadana wuu arki waxa uu jecel yahayna waa arki laakiin waxaas waxa la rabaa inta adiga kaaga aadan inaad ka qabatid waxa ugu muhiimsanna waxa weeye waa wada jirkeena midnimadeena qodobka ugu muhiimsan oo halka ka soo baxay oo runtii dawladdu ay ballan qaadayso waxa weeye tabashooyinka la qabo aanan ka gabanay siday tahay aan u abaarno waxa ugu weyn aan aragnay idinkana waad aragteen oo wax badan waxa lagu xallin karaa markii laga guuro nidaamkii habka beelaha oo loo guuro nidaamka xisbiyada badan oo dadka taladoodu dadka ay rabaan ay soo doortaan waxaan rajaynayaa dad la xisaabtami karo inay halka ka soo bixi doonaan waana qodob aad u muhiim waxa iyadana muhiim ah hay'adaha dawladda adkayntooda iyo dib u habayntooda maadaama muddo dheer ay soo jireen iyadana waxay u baahan tahay in gacan weyn la iska siiyo dhaqaalaha oo aasaaska ummadii ay meel ku noolaato ama dawladda ku jirtana in dadka reer Puntland ay ahmiyad gaar ah siiyaan sidii dhaqaalaheena iyo ilaheena dhaqaale aan u kabacsan lahayn runtii maanta oo dhan baa la fadhiyay wax wanaagsan oo lagu farxaa ka soo baxay waxaan aad u fiirinayay maalmihii la joogay talada waxaa ka muhiimsanaa dad muddo badan iswaayay ayaa isku arkay halka waa la sheekaystay waa la kaftamay waa la dooday waa la kala carooday laakiin waxaan rajaynayaa annagoo gacmaha iswada haysan inaan howlkan ka bixi doonno Soomaalina waxa ay naga sugaysay inay naga heshay waan anigu qabaa dadkii soo shaqeeyay waxaan rajaynaynaa waddo cusub oo guul ah iyo annagoo wada guntana fulinta qodobadii halkaa laga soo jeediyay intii la kari karo oo dhan
in gacan la isku siiyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad fikirkiina u dhibateen sida aad ugu dulqaadateen